runtii waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ardaaga Jubbaland oo ah barnaamij bishiiba ka bixi doona TV-ga waa barnaamij dood ah oo aan ugu talagalnay in bulshada ay ku wada hadlaan ayagoo looga doodayo horumarinta bulshada xogogna lagu kala qaadanayo si kor loogu qaado howlaha kala duwan ee dalka ka socda haddaba maanta doodeen waxa ay ku saabsan tahay xilligan ma la joogaa waqtigii qaxootiga dib ay ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo waxaana barnaamijka igala qayb galaya intuu socdo haduu eebe qadaro cukaasho gaani oo ah aqoon-yahan wax ku bartay xariyaha qaxootiga kuna dhaqnaa muddo 20 sano ku dhawaad Abshir Mulaa oo ah aqoon-yahan wax ku bartay xariyaha haatan degan Abdiraxmaan Samadoon oo ka socda badbaada team oo ah urur dhalinyaro ah iyo Faarax Atoosh oo ah afayeenka jaaliyada Jubbaland ee dalkani Kenya dhamaantiin ku soo dhawaada TV-ga Jubbaland qodobka ugu horeeyana wuxuu yahay xilligan dhawaan sida aad la socotaan madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Sayid Axmed Maxamed Islaam waxa uu tagay xariyaha qaxootiga ee Dadaab waxa uuna dhalinyarada ka codsaday inay dalkooda dib ugu laabtaan waxa uuna balanqaadiyo badan u sameeyay in ay dhalintu ay heli doonaan howlo kala duwan isagoona hadalkiisa kamid ahaa dadkayga duunyo la'aan ay u dhimanayaan duunyadeena dad la'aan ay u dhimanaysaa waxaana hadalkaas uu kamid ah hadalkii madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Sayid Axmed Maxamed Islaam haddaba aan u soo laabano doodeena ku saabsanayd xilligan ma la joogaa waqtigii qaxootiga ee dib ugu laaban lahaayeen dalka aan ugu horeeyo cukaasho gaani aad maadsan tahay nimco agaasimaha TV-ga Jubbaland ee Kenya waxaan kaloo salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay hoolkan ee dooda waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha daawanaya barnaamijkan inta kadib hadii aan u soo laabto su'aashaadii ahayd ma la joogaa xilligii loogu laaban lahaa wadanka gadaal qaxootiga ku nool Kenya aragti ahaantayda haa waliba waa la soo dhaafan taaganahay sababtu waxay tahay waagii aan soo qaxnay Soomaaliya laga soo qaxay waxa loo soo qaxay in laga cararayo dagaal sokeeyo oo ka dhacay dalka waagaas kadib waxa dhismatay dhowr 20 sano kadib dawlad ka baxday ku meel gaarnimadii oo ku dhisan hab federalism taasi waxay keentay in micnaha mid walba state ay dhistaan state kaasna ay noqoto kuwa micnaha maareeya nabadooda gaar ahaan aniga waxaan ka soo jeedaa Jubbaland oo ku guuleysatay inay samaysato maamul goboleed ama dawlad goboleed waliba ku caan baxay nabad uu mas'uul ka yahay oo maamulo mudane Axmed Maxamed Islaam on halkan ka salaamay mar kale inta kadib waxaan isleeyahay aniga laabtay oo hadda ka imaaday haddana laabanaya aniga ka soo shaqeeyay meel fara badan oo ay ka mid tahay Dhobley ay ka mid tahay Kismaayo iyo meel kale fara badan noloshii aan ku noolaa markii aan joogay qaxootiga iyo nolosha aan galay markii aan ku noqday meeshii aan ka soo jeeday farqi weyn ayaa u dhaxeeyay waan ka faa'iideysanayaa fursadan maanta inaad hor fadhidaan idinka oon idin faa'iideeyo maadaama aniga aan ahay ninkii ka soo shaqeeyay meeshaas taas waxay ka mid tahay inaan shaqooyin muhiim ah ka soo qabtay sida airportka Kismaayo oo kale iyo hay'ado aniga aan mas'uul ka ahaa haddana halkan aan u joogo seminar iyo fasax isku dhex jiro kadibna aan laaban doono waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan akhyaarta wajiyadooda ay muuqdaan ee qaxootiga qaar ila joogi jiray iyo kuwa badan oo kale oo inta badan isku arkin xagga in aan isleeyahay waa la laaban karaa waana meel oo nafta la siisan karo nabad ah shaqo leh mustaqbal wanaagsan oo ka muuqdo anigaana ku faraxsan inaan ku laabto mar kale iyo mar kale aad ay u mahadsanyahay cukaasho gaani Abshir Mulaa in badan ayaad ku nooleed xiriyaha qaxootiga dalkani Kenya cukaashana wuxuu sheegay in nolol kala duwan uu galay markuu qaxootiga ka tagay uu dalkii dib ugu laabtay hay'ado ka tirsan oo ka howlgalana deegaanada Jubbaland uu shaqooyin ka soo helay aragtidaadu waa sida adigu nimco marka hore aad baad u mahadsan tahay dhammaan inta aragayga iyo maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaana ayagana dhammaan waan salaamayaa inta kadib markaan su'aashaada u soo laabto aniga fikrad ahaantayda kuma qanacsani mana dooranayo inaan macnaha aan dhaho maanta qaxooti intaan ka tagan dib u laabanaya wadan aan sanad ahayn maadaama wadankii federaalnimo uu galay laakiin wali nabad sax ah maanta ama lagu laaban karo ama la sheegi karo kama jirto
maantadan ayada ahna intaan qaxooti ka tago anigoo 20 sano ahaa inaan wadankii oo nabad ka jirin aan dib ugu laabtadana waa qaxooti cusub la xamili karo maadaama qaxooti aan cabaaraha 20 sano aan wax ku bartay nabad aan iska haystay meel aan jiifto wax aan cuno wax aan cabo macnaha maanta hadana qaxooti cusub feelgal hadana process kala weeye marka ma xamili karo waan gartay abshir mula waxa sheegtay in muddo 20 sanaad ku nooleed xiriyaha qaxootiga dhadhaab kaar qaxootina aad haysato waxyaabaha ugu badan ee aad rabto aan ka heli karin dalka aad ku nooshahay maxaad u doorbiday soo ma haboon inaad dalka dib ugu laabatid oo aad fiiriso sida uu walaalkan cukaasha uu u sameeyay in ay uu ka shaqeysto gudaha dalka Soomaaliya iminkana uu joogo dalka Kenya oo arimo shaqo ama fasax uu joogo maxaad u doorbiday inaad qaxootiga aad ku noolaato muddo 20 sano kadib waa su'aal fiican oo in la isweydiiyo u baahan waana kuma santahay mar labaad su'aashaada maantadan ayada caafimaadka nooc walba hada habdow hab isbitaal hab dhaqameed meel aan seexdo iyo hoyba intaba macnaha kama helayo halkaas maadaama meeshan wax walba ay bilaash yihiin wax walba ay isqaaday barashadii ay bilaash tahay nabad nolol aan ku jiro Soomaalidu waxay dhahdaa kudka gur aqanjo gur anigoo kud joogo de qanjo uma guri karo aad ayaad u mahadsantahay Faarax Atoosh waa fayeenka jaaliyadda Jubbaland ee dalkani Kenya waxa uu qayb ka yahay doodan maanta aan ku qabanayno magaalada Nairobi qaasatan xaafadda Islii Atoosh waad maqashaa xaalka sida uu marayo qaxootiga xilligan ka Atoosh ahaan bisleeda waa la jooga xilliga dib loogu laaban lahaa dalka maxaa caqabada ayaad isleedahay xilligan uu taagan yahay in ay diidayo in dalka dib ugu laabtaan dhalintu aad u mahadsantahay agaasimaha telefishinka Jubbaland ee Kenya Nimca Xasan ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Jubbaland oo runtii si hagarli ah u soo camirtay munaasabadan iyagoo aan ogsoonahay inay aad u mashquulsan yihiin dhalinyarada iskugu jira gabdhaha iyo wiilasha runtii waan u mahadcelinayaa time-ka ay soo horeen secondly haddaan u laabto su'aashaada ah repatriationka ama dib u celinta qaxootiga maxaa hortaagan oo challenge ah waxay la tahay in la laabto oo qaxootigu uu dib u laabto qof kasta oo Soomaaliya uu ka dharagsan yahay jawaabteedu inay haa tahay laakiin maxaa hortaagan waaya haadaas oo loo laaban laayay waad la socotaa Nimco processka saddex geesoodka ah ee qaxootiga dib loogu celinayo mar hore la dhisay ilaa iyo haddana wax ka hirgalay ma laha waxaan rabaa markaan idiin sheego challengeska jira waxa ka mid ah marka koobaad dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ah horta waa dad ku qancay qaxootinimada xaqiiqda marka laga hadlo kana quustay wadankoodii waayo ma rabaan intana hadda halkan fadhisiya kuwana daawan doona iyo kuwa macnaha waxay dhigi jireen naga maqanba ma jirto cid doonayso inay Soomaaliya ku laabato iska daa gobolada dhibaatooyinka ka jiraan kuwa ammaanka ah ayaan loo soconin sababtuna waxay tahay nin kasta wuxuu hanka ku hayaa oo doonayaa Mareykanka iyo Yurub inuu galo looma rabo wadankii waana laga quustay horta taas waa challenge jira challenge-ga labaad ee jira waxa weeye international community ama bulshada caalamka dadka lagu tilmaamo runtii barnaamijkan kada hormuudka saddex geesoodkana geest ka ah raali kama aha qaxootiga Soomaaliya ee Kenya jooga in la celiyo waayo dabka kaliya ee u shidan anu waxaan aaminsan inuu qaxootigaas yahay haddii la celiyana inuu damayo UNHCR baa ugu horeysa hay'adaha UN talaamahooda kala duwan baa ka mid ah yacni halkii hay'ad baa waxaa laga yaabaa inay ka shaqeyso kumanaan waxa weeye shaqaale ah haddii marka la yidhaahdo dib ha loo laabto qaxootigan ha la celiyo shaqaalahaasi macnaheedu waxa weeye shaqalaan baa ku dhacaysa lama rabo marka UN ku ma doonayaan in qaxootigan la kaxeeyo
challengiga saddexaad oon rabin in qaxootigan la kaxeeyo waxa weeye waddankaan dariska nahay ee na martigeliyey ee kenya saad ogsoon tihiin waxay ku jirtaa waddamada ku dhismay burburka soomaaliya dhadhaab dadka ku sugan ee qaxootiga ah kuwa islii ku sugan runtii nacfi aad u weyn ayay ku qabaan waayo UN-kaas aad u jeedaan horta xarumahoodii waaweynaa halkan ay ku yaalaan dadka shaqaalaha ee ka shaqaynaya intooda badanna waa Kenya UN-kuna waxa weeye deganaanshaha dadkaasi qaxootiga halka ay degan yihiin lacag bay ku qaataan Kenya marka marna ma suurtagelayso in ay ku qanacdo dadkaasi hal la raro waddankoodii ha lagu celiyo dhaqaalahana waddankooda ha lagu siiyo laakiin waxaa socota qawda maqashii waxna ha u qaban in la yiraahdo qaxootiga ha la celiyo qaxootiga dib ha loo celiyo cidi rabta waa la celinayaa ana waxaan aaminsanahay ilaa dawladda Soomaaliya ay awood u hesho dhaqaale iyo mid ciidan iyo mid amni in dadkeeda ay qaadan karto iyadoo cidna kala tashanay dib u celin karto qaxooti Soomaaliyeed oo laabanaya ma jiro waana maasantahay intaadan ka bixin Catoosh dad aad u far badan dabcan laabtay dadkaas sababta ku laabteen maxay tahay maadaama aad sheegayso inaysan jirin dad dib ugu laabanaya dalkooda hooyo waa su'aal fiican waxaanu ka hadlaynaa ma aha 100 qof iyo 50 qof kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qaxooti Soomaaliyeed oo kumanaan ah laabashadooda marka waxaan aaminsanahay dadkaasi haddii percentage ahaan la fiiriyo 100% inaan wali la celin waa maasantahay daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ardaaga Cabdiraxmaan Samadoon wuxuu ka socdaa badbaado team waa urur dhalinyaro ah Cabdiraxmaan sida dood u socoto ujeeda maxaa kaaga baxay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan horta waa suuqa maqaabiyaasha barnaamijkan oo bahda Jubaland TV guud ahaan dhammaan ka soo qayb galayaasha asxaabtan panelka ila saaran ee fikradaha dhibanaysa intaba ma garanaysa aad baa u salaamaya inta dabadeed horta qodobka koobaad ee barnaamijku ku socday ma la joogaa waqtigii qaxootiga Soomaaliyeed dib loo celin lahaa kaasaan rabaa hadii la idin haysto dul taago waa qodob xasaasi ah marka saas loo dhigo kelmadda aad tiraahdo waxay saameynaysaa laba dhinac leh waana dareen dad ma umaleynaya inay tahay wax lagu degdegi karo sida iyo sida in la dhaho markiiba hadii la yiraahdo haana saameyn bay leedahay hadii la yiraahdo mayana saameyn bay leedahay marka waxaan is leeyahay xaqiiqda laga tagi karo wixii xaqiiqa in la taataabto muhiim bay tahay ka aniga ahaan waxay la tahay in la joogo waqtigii dadkan la celin lahaa asbaabo badan oo hor istaagi kara way jiraan saaxiibkay Catooshe waxyaalo ka dhawaajiyay oo dhan waa waxyaalo is hortaagi kara laakiin muhiim waxa ah in dadka kan ay joogto waqtigii la celin lahaa dhowr siyaabood midba horta iyaga dani ugu jirtaa in la celiyo waddankooda la geeyo dhibtay ku qabaan qaxootiga waa ka warhaynaa soo kama warhayno dhibtay ku qabaan qaxootiga sharci xumay ku qabaan oo xor uma noola oo cunto waxa laga siiyo waan aragnay oo guriyo waxay ku nool yihiin waan la soconaa ay deegaan u degan yihiin oo 20 sano cimilo ahaan meeshay ku nool yihiin waan la soconaa marka waa dareemaysaan marka koobaad inay tahay wax iyaga dan ugu jirto in loo celiyo waddankoodii labo waddankii amni ma aha la leeyahay ama waddankii dhib baa ka jira ama waddankii dhibaatooyinkii dadkan soo qaxiyay baa ka jiray waa run wax badan way jiraan laakiin ha ilaawina 10 milyan dad lagu qiyaasay baa waddankii ku nool dadkani maxay ku nool yihiin dadkani waxay ku nool yihiin bay'adii laga yimi dadkani waxay ku nool yihiin dhulkoodii guriyay leeyihiin baabuur bay leeyihiin ganacsigay leeyihiin waaweyn kambaniyashooda adduunyada dhan bay maraan laga ictiraafsan yahay waxaan meesha ay ka sameeyeen waa dhulka waa meeshoodii laakiin qaxootiga qof ku nool waa yar yahay ama boqolkiiba mid xitaa waa ka yar yahay qof ku nool oo intuu qaxootiga ganacsi ka dhex sameeyo nolol ka dhisa wax weyn ka abuurta uu yar yahay laakiin haddii ay Soomaaliya ku laaban lahaayeen fursado badan bay abuuri lahaayeen guriyo yeelan lahaayeen meelaha ay deegaan bay yeelan lahaayeen gaadiid bay yeelan lahaayeen kayma waxaas oo dhan nabadda waddankooda ka qayb qaadan lahaayeen waxaan waa cudud waddanka ka maqan haddii ay tahay qaab cashuur uga soo galayso haddii ay tahay qaab shaqo abuur
haddii ay tahay qaab waxbarasho haddii ay tahay population ahaan shacbiyadda waa qaab dhaqaale abuur bay dhaqaale kordhin bay waddanka ka sameynayaan oo badan horumarka waddanka way ka qayb qaadanayaan marka arrimahaas way ii muuqanayaan mid waxaan dhihi lahaa ayaan laga tegin horta guud ahaan waa la joogaa waqtigii dadkan la celin lahaa dalkooda u baahan amni iyo waan soo qaxay haddii ay jirto maalin baa waxaan idaacadda ka dhegeysanayay VOA-da nin dhalinyaro ah oo kasoo horjeeda berdhaweedo la yidhi dhalinyara argagixiso ah baa walba kasoo duusha xeryaha dhadhaab nin dhalinyaro ah oo kasoo horjeedaan dhegeysanayay oo leh dadkana leh annagaa laydinka soo duulaa maxkamad baan la koraynaa sidanaan yeelaynaa annaga saa in la yidhaahdo ma ahan VOA-dan ka dhegeysanaya maalin oo ku dagaalamaya qaxootinimadeyda ha la ii daayo anigu waxba ma soo bahalkiyeeye taasi waxaan isleeyahay waa dadka maskaxda lagala dagaalamay niyadda lagala dagaalamay dadkii qofku wuxuu aaminsan yahay cunto lama siiyo waxa la siiyo waa galay yaara bakhi iyo misir baa la siiya cunto looga dhigaa waynu la soconaa dee badankeenu waaba ka nimid marka qofka bini'aadanka ah waa inuu ka weyn yahay inuu waxaa ku qanco waxa yarka intaan leeg waa inuu ka weyn yahay marka waxaan isleeyahay waa in laga saaro dhalinyarada hankan ah nolol yar baan haystaa iyo caafimaad yar baan haystaa iyo waxbarasho yar baan haystaa meesha qaxootiga leeyahay waxbarasho waa looga dambeyn jiray waa la odhan jiray Soomaaliya inta burburka lagu jiray waxbarasho waa laga helaa waa la odhan jiray laakiin iminka dee weyn la socnaa dugsiyada sare waa la xidhay badankooda arrimo amni la xidhiidha primary ka jira tayada primary intuu leegtahay waa qiyaasi karnaa marka arrintaas waxaan odhan lahaa ka dhalinyarada qaxootiga iyo cid walbaba in la yidhaahdo war waa la joogaa waqtigaad laaban lahayd intaad kusoo qaadatay Kenya waad kusoo qaadatay haddaad wax ka heli lahayd waad ka heshay haddaad wax ka samayn lahayd ka samaysay inagoo aragnay dee waxay ka sameeyeen waxay dheefsadeen intaba mid waan dhihi lahaa laga digtoonaado sharciyay leedahay marka la leeyahay dadkan la celiyo inaan la khasbin qofka oo wax jira qofka inaan la khasbin oo aan la jujuubin oo isagoon diyaarsanayn inta la aruuriyo aan la odhanin waa lagu rarayaa ama waa lagu celinayaa ama meesha ka timid lagu celinayaa taas ha laga digtoonaado labo base ay ku laabtaan ninka dhalinyarada ah aan saaxiibka nahay oo isagoo hadeer ka hadlayay arrimaha ka hadlayay inuu xerada ku qanacsan yahay waxyaaluhu ka dhawaajiyay waxa kamid ah meeshan base buu ku haystay laakiin hadeer qaxooti cusub ma geli karo meel banaan isma taagi karo waa run waxyaalaha laga dulboodi karin dadkan in loo sameeyo base ay ku laabtaan bacay halkan ka degan yihiin haddii dhismayaal loogu bedelo faa'iido oo ahaanaysa bilaha hore 3 bilood 4 bilood 5 bilood ilaa dhulkoodii ay kula qabsanayaan in noloshii ay halkan ka heli jireen ama mid la mid ah ama mid ku dhow la yiraahdo waa intaas halayeen sameeyo qorshayaashaas waa qorshayaasha ay ugu talagaleen deeq-bixiyayaashu inay ku caawiyaan dadka kan balse sida badan waxaa dhacda dadkii waxaan loogu talagalay inaan sidii tahay loo gaarsiinaynin ama ay dhib badan kala kulmayaan marka arrimahaas waxaan dhihi lahaa labada pointiba haddii laga digtoonaado dadkana wadankooda lagu celiyo dalkooda waxbay kusoo kordhinayaan amnigiisa ka qayb qaadanayaan waddanka u baahan iyaga macla ka faa'iidaya niyad ahaan maskax ahaan iyo dadnim ahaan intaba waa mahadsantahay walaalle daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ardaaga wixii su'aalaha waad dhiiba kartaan kasoo qaybgalayaasha أتفتح أحمد الشيخ ميعيقا سؤالها متقن عمل عندي سنة مركا ولالك عكاش ديران سؤال شو يدينا يا horta haddii la laabanayo waa in loo laabtaa saldhig waa in la yeeshaa samin garan meesha oo saldhig haddii la helmo waa la laaban karo soomaa hadda waxay haystaan waddan waxaa haysanaa biis oo hadda nabad ah oo muxuu ah oo nabadgelye hadda haddaan laabano waddankii biis aan ahayn oo nabad aan ahayn haddaan ku laabano ama guryo aan ku haysanin marka waxaan dhihi lahaa saldhig waa in loo sameeyo isaa uga baxaya xasan xaaji ismaaciil su-aasha halkan aan ku hayan waxa weeyaan maadaama bulshadii in dib loo celiyo la rabo misana waddankoodii uu dib ugu baahan yahay su-aasha meesha taalla waxay tahay dadka strategy ma loo sameeyey misana meesha ay dib ugu laaban lahaayeen dadka carruur waxaa jirta fara badan oo halkan ku dhashay halkan wax ku bartay soomaali haddaan ahayna abwaanadeen hore xukumaha ma ahayn miro geed saaran kukudni ku jiro looma daadiyo dadkii de iyagoo haysto meel ay deegaan ay degan yihiin meel ay wax ku barteen wax walba ay ku helayaan cunadoodii inay dib u laabtaan ama meeshay ku laabanayaan wax ma ooga diyaarsan yahay su-aasha meesha taallo xasan cabdullaahi xaaji marka koobaad waxaan u tacasiyeynayaa dhalinyarada dalkooda ka faanay inaan hadallaan laakiin waxaa raba laga hadliyey waxaan u jeedaa dhalinyaro afka soomaaliya ku hadlaya oo una af soomaaliya umana saxda ku hadlaya oo haddana ka faanay dalkooda ka caaray marka labaad marka horreeyay dhalinyaro u bilaabay ayaan soo gocelinayaa waxaan leeyahay miyada u soomaali ahayn
ilaa hadda maanta inaan dad badan aan ka maqanahay waa sababtoo ah fakira falmana dhambaasmaa lagu dhahday meeshaanu ka maqanahay dad badan baa ka maqan soomaali badankeena dad gudaa jooga bateen marka waxaana dalkeeni lama rabo codka diiwaan ku noqono dhibka dadka maxaa la ka difaaci kara qoyl qaadi kara waxbarashada dhigi kara ardada soo kicin kara waxyaala dhan dadka dhigi kara wanaanaga dhalinyarada shabaabta baan nahay marka waxaan leeyahay dalkan wana ka cararin waxba dhayaa isqabanin dalka waa dalkeeni marka waxaan leeyahaa dhalinyarada hayadadan iyo dhalinyarada kan kuwa bishaa marka waxaan leeyahaa dalka ha loo laabto shukran ma laakiin dalka soomaalida uma kasoo jeednaa ha loo laabto dalka waa dalkeeni asalaamu calaykum عكاشة iyo cabdiraxmaan sida uu sheegay cabdifataax dadku ma yihiin dad saldhig loo sameeyo haddii dalka dib loogu celinayo بسم الله cabdifataax su-aashiisii ahayd dadka gadaal loo celinayo saldhig ay ku hoydaan miyaa loo sameeyey jawaabta aan bixinayo haa waa loo sameeyey beesaska loogu sameeyeyna anigaa training ka dhex bixin jiray anigaana ka dhex shaqayn jiray waxaa ka mid ah meelaha saldhigga loogu sameeyey sida kismaayo oo kale beesas dadka markii la soo celiyo lagu xanaaneeyo oo noloshooda lagu ogaado oo iyaga lagu kontaroolo baa jirto oo aniga aan training ku bixin jiray oo weliba muuqdoo la garanayo intaa kadib dadku ma aha muhiimaddu markay waddankooda ku laabanayaan inay u dhaqmaan sidii iyagoo ku laabanaya waddan ajnabi ah oo aysan ku soo noolaanin ama dad aysan ugu horraynin soomaali baa tahay waxaa lagu celinayaa dhulkaaga hooyo aad ka soo jeeday adiga ilaa iyo abtirkaaga ani waxaan aaminsanahay maalinkan laabanaya wax iga horreeyey iyo wax saldhig ahon ku tashanaya midna ma jirin adiga laakiin su-aashaada haddii aad rabtid in meel walba ood ku laabanaysa saldhig in lagaga sameeyo saldhig wuu jiraa waa qaxootiga loo sameeyey wuuna shaqeeyaa hay-ado aad baratay unbaa jira hay-adihii unbaana kaaga horreeyo laakiin xisaabta aad ku darsanaysid meesha waxay tahay inaad markaad laabanaysid aad fikir ah wadatid inaad noloshii hore eed ku noolayd aad wax ka bedashid ood isku tashitid adiga naftaada inaad wax soo saari karto sida qaaya ahaan inaad bulshada ku nool meesha aad ka mid noqotid nabaddan inaad qayb ka qaadatid iyo horumarka haddii adiga aad micnaha wax baratayna at least inaad dadka wax uga faa'iidaysid ood akademikiyada iyo ilmaha aad wax ka bartid marka jawaabtaada oo dhammaystiran waa way leeyihiin haa kulley ninka saaxiibkay baa dhameeyey baan isleeyahay oo waddanka igaga dambeeya hadirsada muuqata meelo badanna sheegaya inkastoo uu sida uu sheegay u badnaa Jubbaland dadka qaxootiga ahna aysan Jubbaland ka wada imaanin ee ka yimaadeen dhulka Soomaalida oo dhan haddii aan ku darsado kelmadeyda horta beesha caalamka arrinta qaxooti celinta istaraatiijiyada ay u diyaarisay baa jirta oo ay ugu talagaleen in loo celiyo waa tan markii hore taabanayay haddii sida ay ugu talagaleen ay u suura gasho oo sida ay ugu talagaleen ay dhacdo dadkan beeskooda uu saxan yahay hadeer European Unionka waqti dhaweed qaxootigu waa labo mid waa kan Kenya midna waa kuwa Europe ka Europe hadda tusaale ahaan muddo hadeer bilya wax ka hor ah waa tirada wasaaraha ka qayb galiyay shirki Malta ka dhacayay wadamada Afrikaanka oo ilaa 4 wadan ah oo laga tahriib aad looga tahriibo waxa loo saxay 1.9 bilyan oo lacagta Mareykanka ah in loogu deeqi doono si ay u kabaan ama u saxaan beeska dadka la celinayo taasoo la macnaa haday biyo tahay haday caafimaad tahay haday shaqo abuur loo sameeynayo iyo haday waxbarasho loo sameeynayo intaba taas waa taas qaxootigan kale waxaan maqlayay kan dhigan u qaabilsanaha ah UNHCR ta qaxootiga Dadaab ee Soomaalida oo leh 135,000 baan u diyaarinaynaa beeskoodii si sax ah si aan u celino marka iyadoo dadka la celinayaan ay ahaanayaan kuwo la weydiiyo iyaga ikhtiyaarkooda ku laabta marka waxay la tahay bees in ay ugu talagaleen dadyooga arrimahan ku shaqada leh balse isweydiinta le waxa weeye cidda la isticmaalaya ee shaqadan fulinaysa waa dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya cidda shaqadan la rabo inay fuliso beeska iyo tan celinta ahba sidii ay tahay ama loogu talagalay hadii ay u sameeyaan cabasha kama soo laaban doonto sida uu saaxiibkay sheegay dadkan dhulkoodii bay ku laabanayaan beeskay u baahan yihiin waa la qabsiga waddanka 6 bilood hore iyo wixii la mid ah marka waxaan isleeyahay dadkan beeskooda sida loogu talagalay hadii loo sameeyo wax ka xumaanaya ma jiraan qofkuna waddankiisa inuu wax ku soo kordhiyo mooyaane waxaan isleeyahay khasaare ku noqon maayo haduu laabto waa ma santiin nimco waa mahadsan tahay mar labaad
macnaha aragti ahaanteyda weli waxaa waaye meesheedii bay joogtaa maadaama dee weli aan waxba nabadna ayaysan muuqanin hoy aan ku heedana aanan arkin maanta daawada ama panadolka aan UN ka helayo waxaan ogahay xagga inaan ka helayn sababtoo ah waa lay qaaday laakiin wax hoy ah lama sameeyeen inaan dalka tagay uun Soomaalinimo aan tagay uun baligay laakiin wax hoy lay sameeyay malaha wax caafimaad lay sameeyay malaha wax dayactiro aan helayo malahan marka wadankaadii joogtay xamaala lagu dhigay maxaan ka xamaalnaa beerahayga waa la dhacay wadankii nabad ay ka jirtay meel aan ku laabanay gurigaan laha cid baa degan marka fikir ahaanta aan qabo waxa waayay meesha meel aan ku laabanay kara maaha mana aaminsan inaan ku laabto annaga ahaan fikrad ahaan aan isku dirnay iska dhaafay madaxweynaha Soomaaliya hadduu imaado ma yeelay inaan laabto halkaad weli naga daawanaysaan waa TV-ga Jubbaland waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ardayga Atoosh dadku waxay haystaan wax la mid ah ma ka heli karaan Soomaaliya sida ammaan caafimaad nolol waxbarasho oo ah baahiyaadka asaasiga ah haddii dalka dib ugu laabtaan fikirka aad baa umahadsantahay Nimco horta marka koobaad daawadayaasha iyo panelistahaba waxaan jeclaan lahaa hal arrin inaan maskaxda ku haysaan meesha aan ka hadlayno waa Soomaaliya oo burburtay dadkeedina kala qaxeen waddan kale horta kama hadlayno qaxootigu kan Yurub jooga iyo kan Afrika jooga waa mas'uuliyad qof kasta ka saaran waddankaada inta dib ugu laabatid inaad dhistid laakiin wax la isku barbaryayo oo ah basement la ii sameeyay iyo meel la waxbarasho ma la diyaariyay ma dadka badbaadada Soomaaliya ka sugaysa qayb ka tihiin laakiin waxaan u arkaa marmarsiyo inay jirto oo ah qof aan rabin inuu noqdo markii horeba wuxuu ku marmarsiyoonayo laakiin hal baan rabaa inaan idin sheego Soomaaliya way noo baahan tahay quustan aad quusateen ee ah in waddan uusan jirin inaynan laabanaynin bal iska dhaafay qisaska la idinka soo warinaya qaarkiin kuwa Yurub jooga waxa la leeyahay Ilaahayow inta aan sharciga Jarmalka ka qaadanayo Soomaaliya nabad yeesan noqonin horta aragtideenu halkaas ay gaartay runtiina wax aad looga xumaado waxaan markaa dadka qaxootiga ah aan jeclaan lahaa inay fahmaan war waddanka UNHCR-na hadda waa ninkii mashruuca markii horeba ka dhigay lacagta kugu cunaayay in isaga intuu ku qaado dib kugu celiya ka sugin dawladda Soomaaliyeedna tabarteedii meeshay maraysa adaa u jeeda anu waxaan jeclaan lahaa qaxootigu haday dad xalaal ah oo Soomaaliyeed yihiin waddanka inay dib ugu laabtaan adan cidna ka sugin hal ay celiye beesa la diyaariyo hal arrin iska saara dhalinyarada waxa ku jirta quus iyo buufis quus waddankii laga quustay iyo buufis galbeedka aan u hilownay waayo saaxiibkay geeska fadhiya inkasta magaciisa haynin iyo inta abshir iyo inta la midka ah waa dadka ku qaxweeya iyagoo xali Mareykanka joogay ama Canada marka nin hankiisu halka marayo aragtidiisu meesha tahay oo xalay dhan ku riyoonaya isagoo Mareykanka jooga ama Ingiriiska horta in waddan uu ku laabto ha ka sugin kaligiisna ma ahee dhammaanteen waan hankacsannahay reer galbeed baan nahay Afrikanimada iyo Soomaalinimadan ka cararaynaa marka xaqiiqada laga hadlo marka waxaan jeclaan lahaa su'aashii aad u sal weydiisay ahayd ma loo diyaariyay maya looma diyaarin run la isku sheegaa fiican kamana heli karaan sugin haddaad qaxooti tahay meesha dooni ku noolow in lagu diyaariyo magaalo dhisan caafimaad u dhammaystiran yahay waxbarasho u dhammaystiran tahay wax weeye sheeg laga helayo nolol waxaad rabtay oo dhan in lagu diyaariyo kadibna lagu yiraahdo soo kac oo diyaaradda soo raac lacag baana lagu siin meesha iyada ah marna ha sugin wax dhici karana ma waayo waxaan ogsoonahay policy-ga international community-gu meesha uu ka taagan yahay waxaan ogsoonahay
soomaalida waxa uu ii sheegaa dadka hadda madaxda noo ah dawladda noo ah tabartoodu meesha ay marayaan oo iyaga laftirkoodiiba dad waxa weeye la fangareeyo oo international community gacanta ku hayo haddii marka bulshada caalamka aysan raalli ka ahayn arrinta soomaaliya yaa kuu diyaarinaya waa maya ma dhacayso taas marka yaan la sugin bismillah horta asxaabta wax badan waa ka wada soconaayo waan isla soconaa badankeenu waxaan isleeyahay waa meel waxyaalaha u baahan in la gargaraaco albaabkooda loogu tago ama meeshooda loogu tago horta qaxootiga dadka waa lagu curyaamiyey soomaaliyan waxaanu ku arki jirnay dad dhalinyaro ah oo biil looga soo diro qurbaha dhalinyarada biilka qaadata marka ma shaqaysan jirin waxna ma baran jirin wuxuu sugayaa walaashii ama habriirtii oo wax yaroo doolara uunu soo diraysa markaa sidaas si lamid ah aniga asxaab badan baan leeyahay oo qaxootiga ah asxaabta qaxootiga ka timid ah baan leeyahay inagoo dee badankeena ka wada nimid oo aanay ahayn kala duwanaansho dad inay jirto sida ugu badan markaad fikradooda aada cabirto waxay eed iyaga kuleeyihiin ma ahan waa wax bay-addu ay ku khasabtay waxaa la siiyaa sida aan markii hore sheegnay xoogaa raashin ah iyo saliido iskuolna waa la siiyaa inta badan waxba ma bartaanba dadka wax barta sidaan xogta ku hayo waa dadkii dambe ee abaaraha iyo beri dambe yimid marka qofka raashinka uu faylka kasoo qaadanayo iyo biyaha uu soo qaadanayo iyo baanadoolka saaxiibka uu sheegay ilmo markuu xanuunsada la siinayo dee nolosha bini aadamku intaas ma ahan mustaqbal baa u baahan tahay horumar baad u baahan tahay dad baa ku sugaya dal baa ku sugaya markay ugu yar tahay qoyskaagaa ku sugaya marka waa habsaan qofku hadduu dhaho waxaan dee dugaashanaya amaan sugaya nimankaas waxay cirka kasoo ridayaan baan sugaya waa waxyaalaha aan idin leeyahay xabsi bay ku jiraan dadka qaxootiga ah iyaga ma ahan khaladka waa wax lagu beeray oo maskixiyan deegaanka uu ku beeray marka waqti bay qaadanaysaa in qafilkaas laga jabiyo waxaan markaa rabaa inaan horta aada la isula yaabin oo ayna dadka qaar qaracan aysan la noqonin in ay dhib meesha ka jiro oo wada ognahay waxaas dhalinyarada haddaba xagga jirta ama fikradda noocaasa aaminsan waxaan kula talin lahaa inay isballaadhiyaan oo bal ay maskaxda furaan oo jawlada iyo dadka adduunyadu siday u nool yihiin ay eegtaan taa iyagana waa kula talin lahaa asxaabtaasna waqti bal la siiyo marba lagu celceliyo in hawshani aanay mustaqbalka qofku uun inta ahayn qofka soomaaliga ah marka uu reerkiisa bisho aad baa loo ammaanaa waxaa leeyahay ninkaas waa nin cajiiba waa ninka hadda qoyskiisa bes ku filan islaantiisa iyo hadduu laba ciyaar leeyahay wax lamid ah aad baa loo ammaanaya nin mas-uula muxtarama weeye ninkan maxaa lagu ammaanaya waxna waa waajibaadkii isaga saarnaa dee ammaan ma mudna oo waajibaadkii lagu lahaa xaq baa loogu lahaa inuu reerkiisa ku filaado taas waxay keenaysaa in qofku hankiisii uunan sarreynin oo intaa dhaafin marka si hanka qofku uu sarreeyo waa in la yidhahda war qofkan intay waajibaadkiisii uunbuu kasoo baxay wax kaloo dheeraada ma samaynin si ka hooseyana markaa uu dee ugu dadaalo ugu yaraan inuu waajibaadkiisa kasoo baxo dadkuna ay ku xisaabtamaan waxaa ka badan in bulsha sugayso in dad sugayo in adduunya sugayso haddii uu noolaado iyo aakhira laba waa mahadsantihiin weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ardaaga waxaan mahad gaara u jeedinayaa axmed cabdiqaadir kaara dile oo ah agaasimaha jaaliyadda jubbaland ee dalkani kenya oo inoo suurtageli maantahay in aan halkan barnaamijka aynu ku qabano waxaan ku sharfayaa halkan in aan microfonka kusoo dhaweeyay aamina cabdi oo ka mid ah jaaliyadda jubbaland ee dalka ingiriiska midda koowaad midda ugu guuda dadka kenya degan waxa ay ku nool yihiin qaxootiga degan dhadhaab hayada jawaab baan ka siiyey kuma noola waxay ku hayaan xalal dhibaato bas soomaalida waxay tiraahdaa reetadawo wala dareera wada qoodhime wax kastoo socda culeyskiisa wataa kenya anagoo yaroo teenagean soo marna ubahna galaata sanafur baan ku noolay kenya markaan imaanayna macaashada iyo siday ahayd iyo maanta siday tahay qaxootiga uleh kaa jawaabtaasaan kaa siiyey talabaad qaxootiga nin walbo qaxootiga waxaa ku qortay hoyga ugu noolaa amaraan ku dhashay nin madaxaayada qaxootiga qurbaha dhexdoogeeyaysa dadkeena uleey waa la garanaya way u fiican tahay dadku inuu wadankooda ku noqdo yaa ka faala qaaday qaxootiga ma jubbaland baa ka faala qaaday ma sharciga reer jubbaland baa matalaysa mise soomaaliyeed baa matalaysa waa cali xuseen sahal tira ahaan dadka hadda laabtay ee dib ugu laabtay soomaaliya tani iyo 2013 markii heshiiskaasi la saxeexay waxaan u maleynayaa hadda inaysan gaarin wali 7,000 waxay marayaan tiradaas ilaa hadda waxay maraysaa 600 iyo dhowr 6,000 iyo dhowr boqol oo ruuxa ilaa hadda dalka Soomaaliya dib ugu laabtay oo qaxootinimadii ka baxay waxaa jirta marka dadaalo badan oo la sameeyay
si processkan looga dhigo mid sidii loogu talagalay u dhaqan gala. qofka hadduu qaxooti shakhsiga hadduu qaxooti noqdo waxyaabo badan baa ka luma. waxyaabaha ka luma marka shakhsiga qaxootiga ah ee uu u baahan yahay hadduu dalkiisii dib ugu laabto oo adduunkao dhan isla qirsan yihiin. madaxda Soomaaliya markay imaadaan xeryaha qaxootiga ee Dadaabna way sheegaan, madaxda Kenya ayaga laftirkooda way sheegaan in loo baahan yahay arrinkaasaga. international community-gana way og yihiin in qofku hadduu qaxooti noqdo uu u baahan yahay waxyaabaha maaragtay nolosha asaasiga u ah in dib loogu yagleelo. qofku markuu qaxooti noqdo waxaa ka dhumaya waxaa laga yaabaa meeshii uu deganaa xitaa inuu qof kala degay oo laga yaabo inuusan qofkaasi haysanin hooy uu dib ugu laabto. waa loo baahan yahay qofka in loo sameeyo, ma ahan maaragtay wax maaragtay muran ka taagan yahay oo layska maaragtay doodi ay ka socoto ma ahan. aan umaleynaya dadka oo dhan waa isla qiraan. caafimaad buu u baahan yahay, waayo qofka hadduu qaxooti noqdo automatically wuxuu noqonayaa qof sabool. qofku qaxootiga waa ogtiin wax maaragtay shaqo ay taalo oo la yidhaahdo hadda maal baa laga sameeyaa ma ahan. dadka qaxootiga waxaa lagu yaqaanaa duruuf iyo tabardarri, dhaqaale yaraan. marka waxaa qasab noqonaysa haddii dalkoodii dib loogu celinayo meel kastoo ay qaxooti ku yihiinba in dadka meesha dib loogu celinayo mas-uuliyiinteeda ay ballan qaadaan in amkaaniyaadkii suurto gelin lahaa in qofkaasi uu nolosha sidii loo baahnaa ugu sii wato in maaragtay ay dhaqan galaan. aniga horaantii hadda bisha November waxaan qayb ka ahaa bartamihii aan idhaahdo bisha November waxaan qayb ka ahaa wafti ka tagay xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo gaaray magaalada Muqdisho. waxaan u tagay arrimaha repatriationka ama dib u celinta qaxootiga si ay qaxootiga dadkii socdo waxay ahaayeen dad qaxooti ah. waxaana la rabay in ay soo sahamiyaan bal ma tahay dalkii Soomaaliya meel lagu laaban karo. waftigaasi la mid ah wuxuu aaday Kismaayo, waftigaasi la midana wuxuu aaday Baydhabo. dadka marka waxyaabaha ay u sahantagayeen ee ay doonayeen inay dib u fiiriyaan ama maaragtay inay ka suurageli karta hadda dalka ay ogaadaan waxaa kow ka ahaa ammaanka. waxaa kaloo jiray adeegyada asaasiga ah oo ayagana si weyn loogu kuurgalayay oo maaragtay dadka qaxootiga ah fursad loo siiyay inay iska hubiyaan in maaragtay adeegyo asaasi ah oo ay ku qanci karaan ay ka heli karaan dalkii Soomaaliya. nasiib daro dadka badanaa halkaasi tagay waxay ka muujiyeen walaac in adeegyadaasi aanay hadda sidii la rabay u dhammaystirnayn. adeegyadaasi markaan sheegay waxaa kow ka ammaanka. aniga tusaale ahaan shakhsiyan waxaan fursad u helay inaan weydiiyo oon si shakhsiya ugala sheekaysto hay-adda qaranka Soomaaliyeed ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga. ninka madaxda u ah Axmed nin la yidhaahdo in aan maaragtay dhaho haddii maaragtay dadka qaxootiga ahi aad soo rartaan maadaama annaga aan nahay dad muwaadiniin. horta dadka qaxootiga ah waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed, nationality kale ma qaadan wali. maadaama dadkaasi ay muwaadiniin yihiinna waxay ku khasban yihiin in dalkoodii ay u damqadaan. haddana qofku inuu maaragtay priority koobaad ama muhiimadda koobaad uu siiyo badbaadada naftiisa iyo qoyskiisa waa wax meesha ku jira. marka anoo ka tixraacaya badbaadada qoysaska Soomaaliyeed ee muddada fog ammaanka ku helay xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxaan gudoomiyaha weydiiyey in uu maaragtay waxaan inay suurtagal tahay haddii aan sidii la rabay waxaan u sheegay inay suuragal tahay haddii aan sidii la rabay loo helin adeegyada asaasiga haddii dalka amnigiisu uusan ahayn mid la isku haleyn karo in dalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ay culays u tahay laftirkooda in la soo raro xeryaha qaxootiga ee Dadaab. waana fikirka aan doonayo inay dadka si wanaagsan u dhageystaan. tusaale ahaan uma wanaagsana dawladda Soomaaliya in Dadaab kale laga sameeyo Soomaaliya. waxaa jira xero barakacyaal, waxaa jira dad barakacyaal oo meelo kala duwan ku nool Soomaaliya. xaaladahooda way iska dhibaato badan yihiin. haddii xeryaha qaxootiga ee Dadaab dadka ku dhaqan aan loo helin adeegyadaasi asaasiga ah ay u baahan yihiin ee maaragtay suuro gelin kara in ay noloshooda u wataan sidii muwaadin caadi ah, waxay noqonaysaa in culays uu fuulo dawladda Soomaaliya isla markaana ay adeeg maaragtay ay suuragal noqoto in dad kale oo dhibaataysan oo 350,000 oo ruuxa
in ay Soomaaliya tagaan oo markaas dawladda ay u noqoto marka dadkii dhibaataysnaa duruufta Soomaaliya ku haysata ay bataan marka dawladda Soomaaliya dan baa ugu jirta in maaragtay dadkani maaragtay adeegyo tayo loo sameeyo in marka dadkani dhaqaale abuur loo sameeyo dadka qaxootiga laftirkooda way soo daaleen 25 sano qaxooti ahaayeen dani uguma jirto inay mar kale qaxooti noqdaan ama xero barakacayaal ay galaan marka waxaan doonayaa marka waxaan doonayaa hadalkayga marka kusoo gunaanadaya in ugu horeyn ay dadku ka arkaan in maaragtay dadkan qaxootiga waxyaabaha ay u baahan yihiin in ma ahan inay barteen in gacanta lagu quudiyo in hadday dalkii tagaan dalkana ay dan u tahay dadkaas laabanayana ay dan u tahay dadka ay ku degi doonaana ay dan u tahay in Dadaab la tirtiro oo aan Dadaab laga sameeynin Soomaaliya waa maasantii السلام عليكم موعي وعبد الله محمد علو أهنا مدحة arrimaha bulshada ee jaaliyada Jubbaland ee Kenya waxaan rabaa inaan dhowr su'aal aan weydiiyo halka hortayda fadhiya haday suurta gasho waxaad moodaa inaan meesha ku haarno shay khibraad xaqiiqdii marka laga hadlayo dib u noqosho ma aha arrin sahlan in maanta dib loo celiyo ma aha arrin sahlan sida aan ka warqabno Soomaaliya dhammaantiin waxaan ka nimid Soomaaliya sidaan ognahay ama aan ka warqabnana Soomaaliya wax walba ka dhaco isla marka uu dhacay aan la soconaa xaaladda ma aha inaan isku sheekeyno dalku waa noocaas kan waa noocaas waan noqonaynaa xaqiiqda nin walba oo joogo gacanta ugu haya waxa meesha ka jiro run iyo been waxa uu yahay runtii Soomaaliya dadka aad ugu baaqaysid inay yimaadaan waxaad moodaa inaad ka soo horjeedid markaas waxa yar ay haystaan amniga yar waxbarashada yar caafimaadka yar inta yar ay haystaan ayaad markaas waxaad moodaa inaad dulaan ku tihiin oo aad doonaysaan intiiba inaad ka baabi'isaan waayo Muqdisho waxaan ognahay dhowr xaaro oo waxaa ku taalo oo ay ku jiraan barakacyaal Baydhabo sidoo kale waa ku taalaa meel walba Soomaaliya ka mid ah waxaa ku taalo xero ay ku jiraan barakacyaal marka kuwii kale ee dibadda joogeen ee culayskoodii iyo dhibtoodii dad kale dulsaarnaa markaad u wacdid macnaha waxaa weeyaan meesha waa lagu kala yaacaween xaqiiqda jirto saaxiibkay Catoosh waxaan weydiinayaa wuxuu sheegay dhalinyarada wuxuu yidhi qaar baa buufis ku jiro qaar baa waxay doonayaan habeenkii ku sheekeeyaan buu yidhi iyagoo ka yimaadeen ama ku joogaan America iyo Canada ninka dhalinyarada ah wuxuu leeyahay mustaqbal wuxuu leeyahay nolol ninka maanta 20 jirka ah ee aan nolol haysan laazim waxaa macnaha ninka qalbiga saliimka ah maskaxda saliimka ah waxay ku fikiraysaa sidii ay nolol fiican iyo meel fiican ku hiisan lahayd xaqiiqda jirtana waxaa weeyaan meelaha aad ka dhawaajisay rag fara badan oo tagay iyo dad badan oo hadda macnaha niyadda ugu jirto way jirtaa taasina waxaa sababayo ma haysto meel uu ku laabto dhulka aan sheeganayno ama aan leenahay Soomaaliya habeenkiina waxaa ka taliyo niman la yiraahdo kixisada shabaab maalinkiina waxaa ka taliyo maamul iyo nidaam marka meel aan isku haleyn karin muhiimkuna waa amni koob shahar kuma cabi kartid meel aan amni jirin marka ma aha ummadda in aad magaciisii aad ugu wacdo meel aan waxba jirin marka su-aasheeda u gudbaya Catoosh waxaan ku weydiinayaa Catoosh waxaan ku weydiinayaa amni baan ka shaqeynaynaa iyo dib u celin waad og tahay shalay waxaa ka dhacay gaalgacayl iyadoo markaa la heshiiyey madaxda joogto wax walba oo macnaha oo lagu heshiiyey macnaha aan kasoo wareegin 24 saacadood iyo haddana maati kale ku dhamaatay marka dadka aad leedahay ha soo noqdaan iyo dhalinyarada aad ka reebaysid inay mustaqbal fiican haysadaan maxaad u haysaa xilligan ma joogno macnaha ballanqaad been ah xilligii la qaadayay wax cad maxaad u haysaa Catoosh waa ka bax bismillah Abdullah Calow aad baa maasan tahay intaadan ka jawaabin su'aashaada waxaan jeclaan lahaa yarkii ka horeeyay runtii macluumaad fara badan la siiyay Ali inaan hal point oo isaga uu yiri oo ahaa dadka qaxootiga ah ee Dadaab ku sugan
waa dad Soomaaliyeed oo dhalasho kala maysa qaadanin baan rabaa inaan ku laabto dadka qaxootiga ah ee dhadhaab jooga waxa weeye 24 saac way baxaan horta waxayna aadaan wadamada galbeedka dhammaantoodna waxay qaataan jinsiyado wadankaasi qofku iska dhiibay qaxootiga galbeedka joogana waxaan is dhihi karaa inta badda martay ma ahaane badankii meesha ay ka baxeen waa dhadhaab iyo Kakuma ma jirto markaa qof intuu ka baxay Kakuma iyo dhadhaab Mareykan ama Ingiriis tagay wali leh anu waxaan ahay Soomaali oo sharci kala ma rabo anu ma hayo waxay tahay dhammaantood waxay qaateen jinsiyada kale bal iska dhaaf xitaa qaar baaba dhaqankii iyo waxa way diintii ka tagay oo la wada socotaan taas horta waa taas kuwa wadanka joogana inta badan waxay qaateen jinsiyada waxa way sheeg wadankan dariskan na host garay Kenya ayaa haystaan dhamaantood intii aan heli karina waxay raadinayaan wali process ay ku heli lahaayeen inay Kenya noqdaan waayo waxyaabaha qariibka waxa kamid ah nin kule anigu waxaan ku dhashay maana waxay dhigi jireen qaxootiga oo Soomaali baan ahay haddana intuu jinsiyad Kenya qaatay goboladii Kenya meel ka dagay af Soomaaliga iyo dhaqankii ka dhumay oo wax way ii sheeg runtii aad u naxis markaad aragtid marka horta taasi waa taas yaan been la isku sheegin qaxooti dhadhaab jooga oo nationalism ah oo Soomaali raadinaya oo halkii 91kii taagan ma jiro Cabdullaahi baan rabaa markaas inaan dib ugu soo laabto Cabdullaahi horta waxaan ka hadlayno aan wax wada dhisano wadan baa naga burburay xooggeena iyo awoodeenana waa loo baahan yahay aan laabana way maxneedu kama sheekeynayno Soomaaliya amaan ma aha Soomaaliya mana waxay dhigi jiray xaaladda Soomaaliya kama sheekeynayno waa sax qof kasta uu ka dharagsan yahay waaqica Soomaaliya ku noosha laakiin iyadoo saa ah ma waxa wanaagsan inaad tiraahdid meeshan lagu dhamaaday noocaas rajo kaba muuqatee Mareykanka sidii aan ku aadi lahaa falkeedii aan galo jinsiyad Mareykanna aan qaato inta iga dambeysana Mareykan aan keeno miyaa ra'yi ah mise waxa ra'yi ah in aad meeshii aad ka timaaday ee noocaas ahayd intaad ku laabatid waxbarasho nolol caafimaad qaabka ay tahay inaad wax ka bedeshid adiga Cabdullaahi inaad isku daydid xigmad waxaa jirta dhahaysa dhalinyaradu waa mustaqbalka laf dhabarta qaran kasto dunida ku nool haddii dhalinyaro la waayana waxa way qaran ma jiraayo I believe intana halkan fadhisa iyo kuwa kaleeta ee nala midka ah ee qaxootinimada sheeganaya haday wadanka dib ugu laaban lahaayeen Soomaaliya wax badan iska bedeli lahaayeen teeda kale ilmada reero kama hadlayno dhowrka kun ee dhadhaab fadhisa waxaanu ka hadlaynaa waa qaxooti Soomaaliya malaayiin baa dibadda ku maqan war dadka iyaga soo celintoodi iyo wadanka inay ku laabtaan iyo in wax la dhistaan ka hadlaynaa haddii marka wiilka ingiriiska galay ama Mareykanka galay oo social media intuu isticmaalo Facebook uu soo galin lahayn isagoo gaari iyo guri cad ku dhex jira isla markaana waxa weeye uu maamada la soo hadli lahayn oo dhihi lahayn $300 xawaalada ka qaado I believe dhalinyarada halkan fadhisa maskaxdoodu in horta ay tan ka bedelaan lahayd laakiin waxa noo kaba galiyay en waalay waa kuwii badda intay mareen magafa uu qabsaday xagga markay tageen Facebook wax soo dhigaya kuwaana waxaan dhihi lahaa Georgia Soomaaliyana iyada Mareykan iyo Ingiriisba ka qaniisane aanu aamino waa maasanta aad ayuu maasan yahay Faarax Atoosh qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena soo gaarnay waxa mahad gaar ah u jeedinaynaa jaaliyada Soomaaliyeed Jubbaland ay ku dhaqan dalkani Kenya oo ugu horeeyay gudoomiyaha Xuseen Maxamed Gaaxnuug iyo agaasimaha jaaliyada Axmed Cabduqaadir Kaaradile iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyada oo gudiyada kala duwan halkan ku sugan xaaladda wadanka ma tahay min dadku in ay ku laabtaan lagu qanci karayo aan weydiiyo Cabdiraxmaan Samadoon inta badan waxay ka maqlaan meediyaha in qaraabadooda ama qaar kamid ehelkooda lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka dhaceen marka ma lagu qanci karayaa sileedahay in dalka dib ugu laabtaan
بسم الله الرحمن الرحيم sida aan markii horeba aniga fikradeydu ahayd dadkan waa la celin karayaa haddii bayskooda la saxo muddo kooban 6 bilood oo u horeysa intay wadanka kula qabsanayaan haddii ay fursad loo siiyo meel ay degaan noloshooda la saxo dadka kanu way la qabsan karayaan wadankoodii meeshani waa meesha qofku ka yimi ma ahan horta yaan la dhihin waa laba qaxootiyood ma aha halkan qofku markuu imaanayay cid ugama soo horeyn banaan buu soo istaagay cidlaa isaga wixiisa waabtiisa iyo dhistay laakiin halkan dadkiisii baa jooga waa meeshu asalkiisa ka soo jeedo nin walba walaalkii iyo adeerkii iyo awowgii iyo aabihii iyo habreertii baa joogta waa meel xitaa isaga oo banaan ah oo faramaran hadduu tago uu heli karayo meel uu dego iyo dhul uu ma garanaysa ay samaysto dhowr siyaabood baan isdul taagi lahaa kelmado asxaabta ay dul marmaraysay horta mid aan aamino 350,000 baad ku qiimeyseen adigu waa ugu badnaan 400,000 Soomaalida qaxootiyada ah ama dhadhaab ha ahaadan ama kakuuma ha ahaadan ee wadanka Kenya ku sugan imisa wadankii joogta oo Soomaali ah hadaba waa 10 milyan balaas 10 milyan iyo ka badan weeye dadka wadanka jooga ee Soomaalida ah intee baad ka tihiin qaxootiga Kenya dadka Soomaaliya degan miyaad ka nafjeceshiin dadka xagga jooga amniga aad leedahay amni meeshii kama jiro soo ka wiilkani ku nool baha 10 milyan baa inoo joogtay madaxdeenu xaggee ka soo baxaan wasiiradu xaggee ka soo baxaan sidii ugu badan tahay isbedel waa dhici karaan laakiin dee hay oranin aniga naftaydu way ka qaalisan tahay 10 milyan ee wadanka jooga saasaan u fahmaya anigu markaas u hadasho arintaas waxaan u maleynayaa in arrin khaldan tahay waxaad la mid tahay qofka wadankii jooga ama qaxooti Kenya ku hawo ama qurbo joog baa hawo Mareykan iyo meesha doonto ka imow nafta wadanka joogta iyo naftaada waa isku mid anaga ka muwaadin ahaan qof kasta muwaadin Soomaaliyada waxa la yimid ka xagga jooga oo dadkii dhibtii la qaybsanay hadii ay dhibi jirtay ana kaga soo cararin dhibtii wadanka ka jirtay ama ka qayb qaadanaya amniga iyo dibudhiska wadanka amni ma jiro wala soo celceliyay iyo dagaal qabaliya daraad dhacay ninkan saaxiibkeen ah oo hadda ka dhawaajinayay dagaalka qabaliga waxa hadda bilaabmay maaha Soomaali weligeed bay isdili jirtay waa la isdilaa waana la odayaal dhaqameed baa hawsha dhameyn jiray laba maalmood oo dagaal miyayna dhahnaa wadankii waxaan uga maqanahay dagaal baa wadankii ka jira miyayna dhaqankeena una ka mid ahayn dagaalku dhaqankeenu ka mid ahaa marka xooluhu dhalaan ee roobku doo dadku ay garanaysaa inta xoololeyda ah xooluhu dhalaan dee way kibri jireen markaas ay sileyn jireen gambaa la iska dhigi jiray beeralayda la mid markay beeruhu soo go'aan way isdili jireen marka dagaalku dee wax asal jiray buu ahaa oday dhaqameed baynu u lahayn iyo cid dhamaysa hadda waxyaalaha aan isleeyahay wayba si aad keenaysa waxa weeye beel caalam baa meesha gashay baa lagu oranaya dagaal yar baa dhacaya beel caalam baa tagay war maxay beel caalam ka doonaysaa meesha odayaal baa ka talin jiray horena u waday dee amuurahana dhameyn jiray dadkii baa shaqadoodii inta laga qaaday dadka la shaqo loo sameeyay dabeetana taasaa soo celcelinaysa waxyaalaha taana ku sii dhalin lahaa halka amniga ah waxaan u malaynayaa asxaabtu inay yiraahdeen difaaceen war adeegyada meesha ku haysana waa ka maaranaaye amni xumaa jirta inay arintaa galeen baan u malaynayaa oo yiraahdeen war anagu raashin iyo baana dool waa ka maaranaa iyo biyo intaba way aan ku laabto amniga ayaad ka sugaysaa inuu qabato oo kuma qofkaad sugaysaa aad leedahay amniga hay wadanka ay hagaajiyo maxasan sheekh maxamuud baad ka sugaysaa mise Cabdirashiid Cumar Cabdirashiid baan leeyahay mise golaha baar ayaad ka sugaysaa amniga qofku isaga sameeysta shacabku iyo dawladdu hadii ay wada shaqeeyaan amniga wadanku uu hagaagaya arinta ugu dambayso aan rabay inay isdul taago meel kasta qaxootiga ka jira ba asxaabtu ay dhowr jeer soo celceliyeen ma dhulkeena war u haynin mise xogtayno haynaa waxay ku kooban tahay xamar wadanka amnigu ka jira mudug hadii kor loo dhaafo ilaa anagu Soomaaliya ka hadlaynaa ka hadli mayno hadii aad gobol u sheegaysaan waa wax gaar ah Soomaaliya ku hadlaynaa mudug hadii kor loo dhaafo ilaa banki geeriyaad oo Djibouti laga galayo amnigu ka jira wadankii dib kama dhaco waxyaalaha marmarka dhaca ee ah de ama hotel la galay xitaa xamar hadaan ku daro ama hotel la galay ama iskuul la galay de halkan buu ka dhacdaa soo naga arkeenay maaha adduunyada dhan way ka dhacdaa miina adduunyada la soconin iyo TV-yada miina daawanaynin meel kasta way ka dhacdaa waxyaalaha halkan mar dhaca ee dinta ah waana taata hadda xamar jirtay de xamar kama jirto dagaal foolka fool inta la isugu yimaado karbash la iska kiciya ma jirto waa meel la galay oo la gubay iyo wax la mid ah taana meel walba way ka dhacdaa haddaan macala ku daro koonfurta arrinta qaxootiyada war dadku iyaga dhulkooda dhista awoodada waa inay aaminto shakhsiyadada waa inay aaminto mar raba aniga inaan sameeynayo inaan qof aragtidiisa inaan dhaawaco mar raba ama liidiisa aan wax yeelo midna ma doonayo laakiin waxaan rabaa xitaa haddaad ka baxdaan meesha markaanu barnaamijyadan waxaan dhamayno qof walba xaafadaada markaad tagto ka fikir waxa laga hadlaya maxay tahay waxa laga hadlaya waa shakhsiyadaada waxan adiga samayso amniga adiga samayso muwaadinimada adiga samayso dalka adiga samayso ha ila soo horfadhiisanin de waxaan ahay aniga halkan aan wax ka sugayaa ama ha igu celinin wadankii oo xagee aadaysa jinsiyadaada luminaysa baabiinaysa
ها حق من فوق عن كأجن باشا إن دو جرد هنقولين هذه ديب تمر هذا ديب لا هذا هاي بعودين كتير هذه ديب تمر ويلك وسوق راح يستو لكن هذا هذه غربة سيئة دو المها دولة سومالي معهن المها هذه أبد كو خصبتو يناد كل ده قالنتو إنه بلدتك وحكي حسوسته كوسي دولة سومالي نقول معي marka arintaas waxaan isleeyahay inaad loo culays saareynay muhiim tahay oo aan lagu mashquulin wax yar yar iyo waxaan hadda arkaynayo raashin iyo amni iyo baalkan iyo amnigan kan ku weerarayo waa bini aadan waa qof adigoo kala ah isba naf buu leeyahay haddii aad tiraahdo warniyo nabadaynu ku wada noolaano dee nabad way imaanaysa haddii aad tiraahdo waran isdil keena noolaada dee nabad helayana taasina waa luqad lagu wada hadli karo intaas ku soo koobi lahaa abshir waxaad qaxooti ahayd ku dhawaad 20 sano haddii madaxdii dalka ay ku baaqayaan in qaxootiga wadanka dib ugu laabtaan maxaa ku muuqdo oo aad ku diidan tahay ma waxaad ku qanacsan tahay inaad ku hoos noolaato gacan shisheeye adigoo wadankaaga uu yahay mid hodan ah waa su'aal aad u fiican Soomaaliya maanta inta qaxootiga ka ah iyo inta gobolka joogto wadanka joogto waxa badan inta wadanka joogto inta wadanka joogto nabadda ay keenay waayeen annaga qaxooti 20 sano 25 sano ahayn ma keeni karno sababtoo ah dadka meesha wali maamulayay way joogan xilki way hayaan marka maanta ayada waqtigan leeyahay annaga hadaan meesha ku noqon horta annaga tigitaanka annaga nabad ma keenayo culays kale iyo qaxootinimo kale baan meesha geenina maahane macnaha nabad ma keenayno garad 25 sano baan qaxooti ahaa maadaama 25 sano aan qaxooti ahaa hadda ka hor baa su'aal nin la weydiiyay waxa oo beer buu falanayay beer buu lahaa marka beertu waxa la 3 bilood bay ku baxdaa galeyda markaasuu bil iyo wax markay joogto wuxuu dhahay ma sugi karee waa in la guraa meesha maxaa ka soo baxay isagii oo dee tabiiciisina ka halaabay khasaare xumo ku dhacday wixii uu sugayayna meesha ku waayay maadaama 25 sano ayuu aan sugayay waxaan diyaar u sheegay wali in ayuu aan sugo maadaama aniga sicii aan fuul dhowraayay uu ii dhal doono wabillahi tawfiiq waxa waan ku qanacsanahay boqolkiiba boqol because of amnigayga ku jiro waxaan aniga meeshan u joogana waa amni wali wadankii amni kama jiro waxa meesha lagu haayo waa Soomaaliya ku celinayna iyo wadankii baan tagaynaa marka ma muuqato wax nabad ah ama wax macnaha aniga nolosheeda maanta qaabili karo ama amnigayga waan isku dayay in badan baa dad badan baa isku dayay oo soo laabtay oo dhahay meel aan ku hoynay iyo waxaan la tagnay qaxooti kala dayactiran ayaga naftooda hata biyihila annaga baan dhool baan helnay ayaga biyihii bay waayeen abshir baan doo socda hadalkiisa ani iyo asagana qaxootiga ku soo wada noolaan jirnay asaga la mid ahaayo ku laabtay meesha uu ka cararayo anigoo nabad ahaana ka imaaday anigoo nabad ahaana ku laaban doona waliba waxaan rajeynayaa inaan in badan ku sii noolaado oo soo noqoninba insha Allah inta kadib wuxuu ku celceliyay xabad baan noola iyo caafimaad dadka meesha ku nool way xanuunsadaan isbitaallo waxaa jira lagu maareeyo xanuunkooda oo la geeyo oo lagu daaweeyo aniga meesha imaanay isbitaal gooni ah la ii dhiso ma shaqaynayso isbitaallada dadka xanuunsan ee maatida ah ee waayeelada iyo ilmaha yarka ee meesha ku nool la geeyo ee lagu maareeyo caafimaadkooda ee baandhoolka laga siiyo ma adigana aad ka soo qaadan waliba waxaan aaminsan inay daawadaas ka tayo badan tahay ayna ka macquulsan tahay inta kadib amniga aan ku celiyo asagana amniga culays ma keenayo in haddii aad laabatid adiga amni darro kale aad keentid haddii intaanadan hadda dhalinyar aan ka koobanahay dumar iyo rag ba aan ku laabano meeshii aan ka nimid nin walba wuxuu kasoo jiraa gobol u gooni ah ama tuulo u gooni ah magaalo haddii fikrad aan qaadano inaan dhalin amni fikradaasna markii aan laabano tuulada aan ka nimid aan la sheegarayno dadka jooga oo aan ka dhaadhicin inaan amni samaysano at least nin walba markuu meeshii uu ka yimid uu ku laabto waxaa macquul inay taaba gasho fikradaas oo ay shaqayso waayo dadku waxay qalbigooda lagu soo kordhiyo bay qaataan in badan marka waxaan isleeyahay inta annaga aan soo maqanahay aan qaxootinahay boos un baa bannaan loo baahan yahay inaan annaga buuxino fikraddu waxaan qabaa macquul ah oo ah inaan laabano annaga amniga keensan karna annaga development samayn karno oo horumar samayn karno xitaa academic ilma wax lagu baro iyo caafimaad samaysan karna
annaga fikrad badan oo laga yaabo inaan la soo maqannahay ku biirin karno oo keeni karto in micnaha waxyaaba badan aan ka bedelno populationka meesha. marka kun jeer waxaan ku qanacsanahay ama aan rabaa inaad qaadatid fikradda ah ama aan wada qaadano inaan ku laabano dhulkii oonaan door bidin ma naga horeeyaa xero yar oo weli galeyna lagu siiyo laakiin aan door bidno at least inaan wax ka bedelno populationka meesha ku nool oo annaga aan wax cusub la tagno oo annaga aan miro dhalino oo lagaba yaabo inuu ilaahay noo sababo annaga inaan wadanka settle ka dhigno. waa mahadsantiin. qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ardaaga ayaana soo gaarnay su-aashii ugu dambeysay waxaan rabaa afartii min hal daqiiq inaad qaadataan hadduu eebana gaarsiiyo. su-aashan waxay tahay siyaasiyiinta rajada ay muujinayaan oo ah in dalka lagu celiyo ma tahay mid dhaqangeli karto? waa siyaasiyiinta dalka. catosh. waa mahadsantahay nimco. way dhaqan geli kartaa haddii waxa weeye ii sheeg marka koowaad dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu laftirkooda ay daacad ka noqdaan in dadka la celiyo waanan ka baxay. siyaasiyiintu in daacada way jiraan laakiin waxaan aaminsanahay in badan inaysan raalli ka ahayn inay dadku soo noqdaan sababo jira awgood laakiin waxaan ku boorinayaa inay raalli oga noqdaan inay ku soo noqdaan dadka Soomaaliyeed dhulkoodii. bismillaahir rahmaanir rahiim. haddii wax walba daacad laga noqdo waxaan is leeyahay dadkana waa la celin karaa weliba dadka la celiyaana way ku qanci doonaan noloshan ay haystaan mid ka fiican bayna heli karaan waa haddii daacad laga noqdo. waa dhameeyay. aniga waxaan aaminsanahay inaysan laabani karin 25 sano baan qaxootigan 92 waxaa la jiray qaxooti waa la celin ilaa maanta waa la celin rabaa ilaa hadda waa la celin rabaa ciis baa lagu hayaa marka lama celin karo dadkana Soomaaliya uma joogaan wadanka ee waxay u joogaan UN iyo Kenya ayaa UN markay isku afgartaan uma la celin karaa. bismillaah waxaad moodaa inaan soo gaarnay gunaanadkii doodan barnaamijka ardaaga. waxaan rabaa marka kelmadeeda ugu dambaysa inaan runtii halkan ka soo jeediyo. horta marka koowaad Soomaaliyeey waxaad moodaa ereyga qaxootinimo agteena inuu ka yahay wax quruxsan oon ku qanacnay. waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego qaxootinimadu inaysan ahayn wax quruxsan. tusaale yar baan idin siin lahaa wadanka Filistiin dhibka haysta iyo dagaalka haysta iyo wax way gumaadka lagu hayo Soomaaliya marka la barbar dhigo wax yaani ka fikir dheeri wadanka isaga dadkiisu maxay aaminsan yihiin كلمة عربية استعمالان باجرتا ولا ده حق العودة. حق العودة معناه واحد ويه دي بنقشده وحق وحنجلان لها إن أنت قدر دارمه ضمان ضدك الصوماليات إقحوتيجا أو آمنان نفس دودنا كتر دعيان دي بنقشده إن حق تهي مقدس باسبورت مريكان ميد إنجليز iyo mid ajnabi oo kalena inuusan waxba ku anfacaynin oo ugu dambeeyntana aad tahay qof qaxooti ah oo wadankiisa ka soo qaxay ku dadaala sida caruurtiina anagu hadda waxay la tahay inteenan qaxooti waaba noqonay kuwa dhabarka aan ku sidno iyo waxa weeye kuwa hadda jooga aanu u dadaalno inaysan lagu shaambadaynin ereyga qaxooti. waa ma santiin hadalku wuxuu marayaa gunaanad kelmad oo gabagaba ah baa la marayaa. aniga fikradeydu waa hal dadka idageysanayeen waxaan rabaa at least inay igala sinaadaan insha Allah. haddii aan passport Mareykan wato iyo haddaan mid Sweden wato iyo haddii aan meel kale joogo weli qaxooti un baan ahay. lamidna miya anoo passport Mareykan wata inaan ninka Mareykanka ee cadaanka ah wali aan isku xaqnay at least waxaan ahay nin ma aragtay marti un laga dhigay. Soomaalinimada ogolaada Soomaaliya ku laabta fikrad wanaagsan oo saliim ah la imaada. waxaan isleeyahay
nin walba wuxuu wax ku yahay meesha uu ka soo jeedo soomaalinimadana inaad aamintaan waa sax waad mahadsantihiin waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin dhammaan daawadayaal maadaama waqti dheer aan wada qaadanay idinkana waad ku mahadsantihiin waqtiga dheer aad nala qaadateen ani ahaanteyda waxaan aaminsanahay inaysan arrinkaas ay suurtogeli karin oo waxba kama jiraan iyo fikrado la isku dardarsaday ay yihiin maadaama aan ahay qaxooti UN way ogtahay aniga maadaama aad dhahdeen waddanka annaga aan ku laabanaynaa cid aad u sheegteen ma laha inta maad ka hadasheen marka waad ku mahadsantihiin dhammaan waayahay bismillah waxaan u malaynayaa gabagabadii inay soo gaadhnay inta badan dareenka qofka ma fahmno haddaan Soomaali nahay qofka hadduu ka hadlayo waxyaalo xasaasi ah halkii loo murugoon lahaa waxaan ku bedelnaa inaan ku qosolno waxaan kusoo gabagabayn lahaa Soomaalidu waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika marka loo eego adduunkana waa xeebaha ugu dheer waa waddanka leh waxaan leenahay laba walbiyood oo aan istaagin 24 saac sanad walba beerihii baa inooga soo go'i kara korontaan ka dhashan karnaa wax walbaan ka samaysan karnaa dooxada nugaal biyaha ku jira waxaa la yidhahdaa Afrika oo dhan baa ka cabbi kara dooxada nugaal haddii saa loo faadfaado biyaha ku jira Afrika oo dhan baa ka cabbi karta ma arkayno waxaan u malaynayaa inaad dabo laga saaran yahay oon leenahay bal wax kale aan eegno Atoosh wuxuu yiri mar hore qofku waa in runta la soo sheegay buufis baan sugayaa waa luqadan qaadan karo oo niman buufiskaas aan ka war dhowrayaa meesha nolol kuma haystee hay ugu dagaalamina waxaan ku jiray buufiskan sugayaa waa wax af la fahmi karo weey laakiin dibta aan arkayno baan ku dhowrsanayaa wadankii waxa ka jira waxaan u malaynayaa inaan wax la isbarbar dhigi karayaa aanay ahayn saaxiibkeenan wuxuu yiri sacba ay dhalay mar dhow sacii baan sugayaa inuu dhalo dawarkaasi waa cad yahay ninkan buufisku sheegayay buu ninkan ka war sugayaa marka way caddahay kuma wareegi karno kuma rafaadi karno caaw dhan aan soo celcelino war meesha dib baa ka jira hadii ay qaxooti tahay dib baa halkan ka jira dadka wadanka kuma ku dhibaatoonayna hadaynu maanta dhan sida u warwareegno isbedelka waxa abuura qof iyo labo malaayiin ma ahan hal qof bay ka timaadaa labo la sheer garaya ama saddex buu la wadaagaa kadibna sidaas ayay wax walba fuf way soo kacaan markaas isbedelku wadanka ka yimaada waxa laga yaabaa wiil yar oo qaxooti ku dhashay aabihiin hadduu rabo qaxooti ku dhashay inuu wadankaas isbedel ka sameeyo niyadda waa inaanan u dhigan qaab ah inaan dhimanay oo ay markii hore aan moogtahay waa dadka way xidhxidheen qolyahan qaxootiga lagu hayo waa dad la xidhxidhay oo qafil lagu jabiyay markii hore aanu nidhi laakiin hadda waxaan is leeyahay niyadda qofka hadduu ka dhinto way dhib sida loo soo nooleeyo ha lagu celceliyo bil kelmadaha haddii la idmo ciddii meel ka wanaagsan helaysa Soomaaliya ilaahay ha u fududeeyo annaga leh ilaahay u fududeeyo ciddii meel ka wanaagsan helaysa laakiin wadaniyadu iyo dal jacaylku qof bay ka timaadaa qof walibana mar buu fahmi doonaa marka lagu dhibo lagu rafaadiyo hoogaagu kaco adiga oran doona war yaa dad ii xiga xagee dad iigu dhow markaas Soomaali soo xasuusanaysa wax caadi ah taasina waxaan ku soo gabagabayn lahaa oo mahadnaqaynaa horta dhalinyarada barnaamijkan ugu soo casuuntay guud ahaan jaaliyada Jubaland wadanka Nairobi wadanka Kenya magaalada Nairobi asxaabta Jubaland TV iyo shaqaalaheeda dhammaan way ka mahadnaqaynaa kulanka noocan ah ka badbaado ahaan barnaamijyadan anaga waxaan sameeynaa siyaabo badan ayaan isugu nirahnaa bal wixii wacyigelin ah bulshada ee la gelin karayo aad bal kala hadasheen siyaabo badan baa u taataabanaa qodobkan waa qodob muhiim ah idinka haddaad ka hadasheen waxay la macno tahay in Soomaaliya oo dhan ay ka hadashay waa idinka mahadnaqaynaa kulanka noocan ah waxaan rajaynayaa barnaamijyada noocan ah in bal la joogteeyo oo xitaa qaxootigii la tago oo xitaa dadka la soo wareysto oo view sax ah laga soo qaado ummaddu sida ay u nooshahay meel walbaba aad baa u mahadsantihiin idinkana aad baan idinku wada mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullah guud ahaan daawadayaal barnaamijka ardaaga inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaan kaga hadlaynay ama qodobkiisa dooda uu ahaa xilligan ma la jooga xilligii dadka ku dhaqan qaxootiga ee dib ugu laaban lahaayeen dalkooda waxaa barnaamijka igala qayb qaatay Cukaasho Gaani Abshir Mula Cabdiraxmaan Samadoon iyo Faarax Atoosh oo ah afayeenka jaaliyada Jubaland ee dalkani Kenya waxaa sidoo kale kana mahadcelin gaar ah ugu jeedinayna jaaliyada Soomaaliyeed ee Jubaland ee dalkani ku dhaqan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Nimco Xasan waxaan barnaamijka soo saaray Cabdullaahi Dhagaf
waa kaameradii cabdullaahi iyo axmed cabdiqaadir cabdiqani waa bahda isku duwanadilah sidaa iyo nabadgelyo.